toddobaadkii hore ayay dowladda Ingiriisku digniin ka soo saartay arrimaha nabadgelyada Soomaaliya oo ay Soomaaliland ku jirto. Digniintani ku wajahaneed muwaadiniinteeda u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa waxay dowladda Ingiriiska uga digtay inay booqdaan meelaha lagu badan yahay, isla markaana loo sheegay inay si dhow la socdaan ammaankooda. Haddaba xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay digniintaasi ay dowladda Britain ka soo saartay nabadgelyada muwaadiniinteeda ku sugan Somaliland. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diri oo warbaahinta qaarkeed kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa yiri arrintaasi dowladda Ingiriiska ay khusaysaa iyaga dadkooda wuxuu sheegay laakiin xaggeena nabadgelyo aynu ognahay ma jirto la yaab ma laho marka dharaar walba xamar weygii walba maray ka dhacayaan ama labadii saddexdii cisho mar garax ka dhacayo inay dadka u digtaa kulama yaabin laakiin xaggeena kulay odayaashu wayna raaciyeen Hargeysa Berbera mooyaane laakiin wax iyaga u khusay waxaanu leenahay dowladda Ingiriiskana dadkooda digniinta ay siinayaan hadda laba dal baanu kala nahay waanu kala gedisanay bal ka yara fiirsadaan taasaan anu iyaga u soo jeedin lahaa laakiin waa arrin iyaga u taala dhowr maalmood ka hor waxa magaalada Boorama lagu xidhay dhalinyaro. Haddaba waa kan Maxamed Muuse Diriye wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland la weydiiyay sababta ka dambaysa xadhiga dhalinyaradaasi. dhalinyaradu kulli wasaaradda arrimaha guduhu wixii isku daya fowdo waa xidhayna aynimadu timaha waa ogeydeen oo ka wada hadli mayno wixii ay sameeyeen waxay ku hadleen waxaad ogtihiin baad idinkuna weydiisaan annaga marka waa xidhan yihiin afarina baanu xidhnay waa la eegayaa bal wixii dambi ay yeeshaan. wararkii u dambeeyay ay baahiyeen warbaahinta gudaha Soomaaliland ayaa sheegay in saddex ka mid ahaan jiray golihii wasiirada ee madaxweyne hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo ay ka degan magaalada Muqdisho. haddaba sida ay xukuumadda Soomaaliland u aragtaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diri oo arintaasi wax ka weydiiyay ayaa kaga jawaabay arintaasi waa inama waa iska shaqadoon horena waa taan idinku sheegayo waxa ku dambeyn doonaan in xalna saamaxo iyagoo soo socdo oo soo yaacayo codsi saamaxeed muxuu ahaa cod fi afis muxuu ahaa dalbanaya ayaynu arki doonaa bari ah marka wax lalay anu lama yaabin niman arsaaqad meel walba oo taala dalkana inay taala nabadgelyo qarax dharaar walba ka dhacaya waynu ogsoonahay tagi maayaan kismaayo bahashi toona waa xamar waxay tagaan xamar qarax baa yaala marka inay dalkooga imaansadaan bay ahayd inay muxuu ahaaye arsaaqadu halkan ay taala ka sugaan bay ahayd shalay wasiir raayeen intaas oo sanadood bay ahaayeen inay dharaarba dabayshu meel u qaato maaha rag waaweyn oo aan u haystay inay mudakar yihiin bay weeyay raggaasi sheeshe bari waxaad arki doontaan iyagoo leh war halna saamax madaxweynuhu cafis anoo fidiyo Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa.